galabtay galab kale ahayd waayii hore waxa la dhihi jiray dawladdu intay dadka ku shaqayso ayay albaabada ka xirataa laakiin sanadkan waa ka duwan yahay sanadkan waxaa la xusay dadaalkii lama sheegano hal wasaarad kaliya ma sheegan TV-ga qaranka kaligiis ma sheegan wasaaradihii gaashaandhigga iyo arrimaha gudaha kaligood ma sheegan sanadkan waxaa guushii dhacday waa la wada sheegtay dhammaan dawlad dhalinyaro TikTok iyo TV-ye iyo ummadda ilaahay oo dhan qayb bay ka ciyaartay sidaasaa la qirtay lana qiray munaasabadana saasay ahay waa ku mahadsantihiin mar labaad waxaan idin leenahay dalkii weli waa idiin baahan yahay sida hadda wasiir al-cadaala uu tilmaamay dalkii ma tegin maalmihii xorriyadda dhammaaday qarankaana muddo dheer baa duulaan ugu ahaa jiritaankiisa calankiisa midnimadiisa iyo sharafkiisii karaamadiisa dhalinyarada waxaan leenahay meeshii ha laga sii wada shaqadii sanadkaana rikoor fiican baad dhigteen bilaal baa sheegay waxaa la dhigay challenges cusub baa la dhigay waxaa la xaqiijiyay xamar safe waaye sanadkaani xaqiiqowday waana la arka ummadda ilaahay oo dhanna way qirta marka halkaasa laga sii wado shaqadaas fiican ee dalkaad u qabateenna abaal weyn baa laydinkaga hayaa shacab iyo dadkiisa iyo dowladdiisa oo isla socdana guulaha la gaaray oo khawaarijta laga gaaray oo kalea laga gaarayaa sumcadda iyo karaamada dalka meeshaas marka haddii la isbahaysto halkaasaa imaanaysa wixii dhaliil oo la qabo iyo wixii yar oo la qabo qof iyo laba laga qabo waa maaragtay waa la iska sunnaysan karaa laakiin dalka yaan la ceebayn kelimad kasta oo la yiraahdo oo xun oo dalka laga sheego dad baa qaadanaya daliil u qaadanaya kalimaadka la leeyahayna ha la iska fiiriyo wixii dalka amnigiisa wax u dhimaya wixii khawaarijta moralkooda kor u soo qaadaya wixii muujinaya qarannimadeenna waa sheegna waxaan idhi dowlad goboleedyada calankooda ayaama dhoweyta aad bay noo qaateen waan daad bay ahayd laakiin sanadkan xoogaa waa kii qaranka kor loo qaaday adeerayaalow raggii hadda iyo gabdhihii ku caanbaxay calanka qaranka inay kor u qaadaan bal xoogaa sii siday ilaa sanad soo socotay inta laga gaarayo yaan la dhigin aad iyo aad baa u mahadsantihiin munaasabadan guddiga oo guddoomiye lahaa guddoomiye cali xoosh wasiirka arrimaha gudaha oo munaasabadan gartana waa u mahad celinaynaa wasiir al-cadaala oo runtii kaalin weyn ka soo qaatay iyo TV-yada iyo warbaahinta qaranka iyo kuwa private-kaaba waa ku mahadsan yihiin mar labaad iyo mar kale sanada soo socota waxaa ballanteenu tahay iyadoo waxaan ka barannay tii hadda diyaargarowga xilli dambuu bilowday laakiin diyaargarowga inaan xilli hore bilowno horeyna u soconno meel kastoo qurxoonna dalkeena laga sawiro meel kastoo liidatana hoos loo dhigo aad iyo aad baan u mahadsantiin